أنا وطن عندي أمر يسوي ولا سعوته يا لكن لو كان يستخدم كرة جوا سيدا قوس حساب تقول يقف شغالة يصير جوا معلومات الكسية ومحكي شيء معلومات الكسية وشغالة يقوي أما هو source of the pipeline projects كوتشيرا لابد أنا وربنا إن لابد ليسكو جينا لو ذاكتو ديجا ماذا مشاريع راس كسودان waxa confuse badan uu ka jira oo aan soo aragnay guddigeegu markaan gobolada marinay in mashaariic hay'adaha ku jira hay'aduhu ay fulinayaan isla dawladana ay ku jira mashruucaas oo halkaas ay noqotay xarun lagu xado mashaariicda qaranka oo shaqeeyo duplicate activities uu jiro ayaan soo aragnay kaana waan ku weydiinayaa lacagta ku baxaysa mashruuc walba isna waa doonaynaa muddo badan waxa dhiga dadka reer Soomaaliland ka badatay sanduuqa la yiraahdo SDF Somaliland 790 milyan oo dollar baa baxay fayskii koowaad uu dhamaaday waxaanu xaqiiqo u haynaa wadooyinka hay'adda wadooyinka wixii wadooyinka galay oo wadadii halka u dhaxaysay Dilay iyo Gabili baa fushay wadada Burco waxay la waqti ahayd dekada dhamaatay imiga xargeyn laga jaray la doonayay Burco dhaxaysay ma ololaa doonayeen lagu galo maxaa loo fulin waayay oo dadkaasi way ku dhibaataysan yihiin wadada maxaa loo fulin waayay maalin walba wasiir walba halkan yimaada wuxuu oranayaa waa imika la bilaabay asasmakeegi qalabkii baa la raray waxa la wax qalab la rarayna ma jirto maanta waxaan rabnaa inaad noo sheegto maalinta la bilaabayo mashruucaas inta marka laga yimaado wadooyinka lacagta kale ku xusan mashaariicda SDF ka sanduuqiisa waa kan maxaa la dhahaa page-kii maxaa la yiraahdaa sanduuqa SDF lacagta la rabay loo ogaado waxa kamid ah in lacagta la siiyay wasaaradda biyaha la siiyay oo lacagta 2 milyan oo dollar oo fayskii koowaad ku jirtay meel la dadkina haraad buu dhimanaya ceelasha halkee laga qoday maakhira laga qoday haraad baa loo dhimanaya labadii ceele boorame fayskii koowaad ku jiray SDF ilaa maanta lama furin lacagtoodina way baxday halkan golihii baa joogo laga moodo goyon koriyo su'aalaha sidii gudoomiyaha guddigu sheegay wasiir wuu ku taagan tahay ballantaadii adiga inta badan lacagta mashaariicda ku baxday laguma weydiiyo confuse baa yara jira adiga waxa lagu weydiinaa ka rabnaa wasaaradahan qorsheynta qaranka waxa ka rabnaa inay liiska nasiiso wasaaradda biyaha inta mashruuc ay gacanta ku hayso inta ay beeru ku hayso inta ay ku hayso waxbarashadu deetana hadii anagu lacagtii waxaan u raadinaynaa maxaa la yiraahdaa hay'adaha fulinta laaban raadinaynaa marka idinka la idila soo xidho macnaheedu maaha wasiir in adiga lagu weydiinayo implementation ka maxaa la yiraahdaa xafiiska mashaariicdaas yeelo waxba ku cabsi galin golahan marka halkan lagu weydiiyo anagu liisku ma ka rabnaa maalintii liis baan ku weydiinay waayo markaan kormeerkayga sameeynay baan aragnay hal mashruuc oo 790 milyan reer Soomaaliland baan u sheegayaa shacabkaan u sheegayaa soo duuba moobilada ku soo duuba haddii hal mashruuc oo dhamaaday aad haysaan oo ummadda u shaqeeyo waxaana loogu talagalay inuu sustainable development fund baa loogu talagalay mashruuc waara sida ka u waaray maxaa la dhaxeeyo maxaa la dhaxeeyo Dilay iyo dhaxeeyeen iyo Berbera marka waxaan rabaa inaad liiskaas oo dhan nala wadaagto sidoo kale waxaan ku weydiinayaa maxaa kaaga qorshaysan kala xadeynta mashaariicda si duplicate-ka meesha looga saaro oo ceel baa miisaaniyadda qarankan ku ansixinay halkan isla ceelkiiba waxa laga soo qaadanayaa UNICEF ama UNFP halka ceelun bana la qoday lacagta ayaa qaata wasaaradda qorsheynta ma qayb bay ka tahay mashruuca meesha dhaxal laga saaray aad iyo aad baad u mahadsantahay wasiir salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh su'aalayga inta badanna aan u galo marka horta qodobka koowaad NDB3 ama NDB-yadu waxaan aaminsanahay inuu yahay executive document waa document ay samaysato hadba xukuumadda joogta waa laga guuri karaa waxa loo guuri karaa hanaan kale cusub marka maadaama uu yahay 5 sano sanad walba mashaariicda ku jirtaan ay kugu soo marayso miisaaniyadda meesha aad kala socotaa waa halka miisaaniyadda mashaariicda ku jiraan marka halka sharciga ka waafajinaysa waa halka laakiin waxa laga caawinaya si guud qaranku hanaanka uu soconayo iyo jeex marka xamin laha waa document fulineed waa laga guuri karaa oo xukuumaddu waxay isticmaal kartaa nidaam kale ku fuliso mashaariic laakiin mar walba kullu uu soo maraya mashaariicdiisu taa waxa la ugu baahnaan jeclahay nidaam kale oo loo maro wixii UN la xidhiidha tirooyinkooda
iyo mashaariicdooda iyo waxaynu kaga sheekaysanaa marka noo timaadaan haddaa u baahato idin soo diraynaa taana way naga fadhidaan waxay noqotay arrimaha SDF-ka mashruuca SDF horta wanku isagu dhamaaday oo dee mashaariic baa ku jirtay ama noqoto horta biyaha boorama laba Facebook maadaama markii uu dhamaanayay SDF wanku mashruucaas uu bilaabmay wixii procurement qalab la soo iibinayo wax la raaciyay wankii fulintii oo ah ceelasha qododoodii iyo fidintii baybabka iyo kaydkii iyo shaqaysiintii wax la socota SDF2 December kulli saan shalay toolaan balanta ku qaadnay isagu uu furmi doonaa mashaariicda kale ay kamid yahay mashruucii la oran jiray muxuu ahaa boorama dila ee uu fulay alaab marxatiga marka mashaariicda badankoodu way fuleen tuugay noqotay biyo gelinta hargeysa ku jirta anaga hay'ad ku dhamaad mashruucaas laakiin mashaariic kala socota ayaa jirto iyada ku xiran mashruuca boorama waa sheegay mayd dekadu way dhamaystiran tahay laakiin labadii kale ee qaybood mashruucu lahaa oo ahaa in wadadiina la hagaajiyo tababarkii muxuu ahaa ka faa'iideysan la sameeyo oo ilaa 4 ku soconay mashruucii taasina way socotaa wadada berberiyo burco de mashruucu wuxuu maraa heerar iyo hanaabu maraa oo mashruuc weyn oo balaano 9 milyan waad garan kartaa procurement-kiisa nidaamka xayeysiintiisa iyo kasaarisiisu lamid maaha marka mashruuc 1 milyan la fulmay taasina kulli si fiican loogu socdaa markaan duubo doorta cabsi ma jirto oo ereyga cabsi waa naga xaraano sharci man ka hadlanayo iyo arrin anagu wasaaradda shaqada leenahay wasaarad jeediso waa isku dubaridka iyo daba socodka isku dubaridka markaan wana gacanta ku hayna qorshe qaranka anagu waxaan u go'aaminay laakiin dad in la isku yimaadaan hay'adaha qaranku ay tashadaan mudnaan la sameeyo mashaariic la design gareeyo ama la qorsheeyo kadib fulintooda laga shaqeeyo wixii ka soo baxay gaabna buuxin baan ku shaqeynaa marka kulli waan ururinayaa SDF1 iyo 2 dawa waxaad ka akhrisaa waxa ku jira website-ka hanaanka loo qaato shaqaaluhuna ama mashaariicda loo bixiyana maadaama uu yahay mashruuc wadaaga oo shan wadan inagu aan nahay waa nidaam aanu dhex ah wasaaradda mashruuca leh iyo cid matalaysa muxuu hadba deeq bixiyaasha wasaaradda qorsheynta intaas marba mashruuc walba hareeraha ka taagan oo la socota xayeysiintiisa iyo bixintiisa iyo daba socodkiisa maadaama uu yahay mashruuc inaan nagu lahayn laakiin uu yahay joint function ama wax wada leeyahay waxa kale oo ku jira guddiga qandaraasyada ku jiraan oo iyaguna way fadhiyaan marka la bixinayo mashaariicda kuwaasna wax loo bixiyaa si ama qof aan noqoto ama mashruuc aan noqoto si wax loo bixiyaa dah furan hanaanka loo raacana kulli haddaad imika gasho oo ku jirta muxuu xilliban maxameday uu ku jira procurement muxuu ahaa procedure ku jira iyo nidaamka loo maro oo dhameystiran kulli